kusoo janaalka Big Deal News fadlan saar subscribe haddaad ku cusub tahay janaalkan fadlan saar like and share fadlan gaarsii walaalka aan ogeyn janaal adoo mahadsan walaal ka faa'iideyso ummadana ugu faa'iideey. Asalaamu calaykum. Waxaan halkan kasoo jeedi doonaa 5 madaxweyne oo Hawiye ah iyo 4 madaxweyne oo daarood ah. Sidee xilka iskugu wareejiyeen labada beel ee qaata madaxweynenimada Soomaaliya, sidee xilka iskugu dhidhiibeen. Madaxweynihii ugu horeeyay ee qaadato ama yeelato madaxweynaha Soomaaliya Jamhuuriyadda Midoobay ee Waqooyi Koonfur wuxuu noqday nin soo jeeda qowmiyadda Hawiye oo degta badankood koonfurta ilaa bartamaha Soomaaliya. 1960 ilaa 1968 ayuu madaxweynaha hal sano ku meel gaar ah iyo 6 sano oo talada hayay. bil ka hor ayuu talada doorasho qabtay. bilkaasna waxaa lagu caleemo saaray madaxweynaha Cabdirashiid Cali Sharmaarke si nadiif ah xilka loogu wareejiyay, laakiin 2 sano kadib waxaa xilkii ka dishay walaalkiisii afweyne Siyaad Barre wuxuu talada xoog military ku qabsaday 1969 ilaa 1990. intaas dalka asaaska maamulayay doorasho ma jirin, hal xisbi ayaa dalka maamulayay. afweyne dalkii wuxuu ka dhigay burbur, dagaal sokeeye ayuu geliyay. Kadib waxaa dalka talada qabsaday nin la yiraahdo Cali Mahdi. si walba u dadaal dalka wuu hagaaji waayay, sidaas ayuu iskaga casilay. Kadib waxaa talada qabtay Cabdiqaasim Salaad Xasan. sidoo kale wuxuu taladii si sharaf leh ugu wareejiyay Cabdullaahi Axmed mise hormay isbaqtiga muxuu ahay Cabdullaahi. kadib Cabdiqaasim talada waxaa qabsaday ninka la yiraahdo sida hore inuu sheegay Cabdullaahi Yuusuf Axmed. taladii dalka wuu ku dheelay, wuxuu ka dhigay meeshii meel ay suuqin iskugu imaado oo hal beel ay ku tashato. kadib wuxuu xilka ka qaaday ra'iisul wasaarihii Hawiye, haddana mid kale ayuu magacaabay, haddana kii kale inuu ka qaaday isku damcay, laakiin Nuur Cadde ayaa ka diiday oo talada ka raacdiyay. kadib waxaa talada qabsaday Shariif Sheekh Axmed wuxuu si nabad ah wanaagsan ugu wareejiyay taladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sidoo kale si wanaagsan ayuu wuxuu ugu wareejiyay madaxweynaha Shaaribo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida u taqaan. marka ummadda Soomaaliyeed waxay indhaha ku haysaa Shaaribo ma wuxuu raaci doonaa wadadii Cabdullaahi ama Siyaad afweyne ama Sharmaarke laga dishay, mise wuxuu dhankooda raaci doonaa halyay Cabdiqaasim, halyay Shariif, halyay xasan sheekh, halyay Nuur Cadde, halyay Cali Mahdi.